haddaba episodekan waxaan doonaya inaan kaga hadlo production waxa weeyaan maalinta wax la duubayo. episodekii hore waxaan kaga soo hadalnay pre-production waxa weeyaan inaad wax balaan garayso. qorshayntaada hore ayay ku xidhantahay maalinta production daygu waa maalinta ugu muhiimsan ee wax duubayso. waa maalinta ugu muhiimsan ee projectka aad gacanta ku hayso eed ka soo bixi lahayd. haddaad si wanaagsan u qorshaysatay maalintan way kuu fududaanaysaa. hadday maalintani kuu fududaatana hadhow editingka iyo waxaad qaban lahayd iyo post productionka aad kuugu fududaanaya. inta badan qofka hadduu documentary duubayo haddii aanay wax continuous aanay ahayn hal interview kala duubayso it takes you 1 hour 2 hours. haddaad film duubayso inta badan filmaanta aad aragteen ee saacadiyo barhka soconaya ama 2 saacad soconaya inta badan waxay ku qaadataa maalmaha wax la duubay 3 bilood 4 bilood sometimes 5 bilood sometimes. marka waqti dheer bay ku qaadataa qofku in uu wax duubo. aad bay ugu kala duwan yihiin filmmaking iyo documentaryga iyo heesaha iyo marka la duubayo YouTube page-ka serieska iyo barnaamijyada iyo waraysyadu noocyo kala duwan buu wax duubaa. You can shoot by 1:1 ratio, 16:9 ratio, 9:16 ratio, 3:4 ratio. Ratioga hadba waxay ku xidhantahay waxyaabaha platformka doonaysa inaad soo dhigto. waa maalinta qalabkii soo qaaday eed goobta keenaysay. locationkaaga waa inaad xilli hore timaada ood ka horeysaa cidaad wax ka duubayso. haddii documentary tahay you have to come 30 minutes before. 30 daqiiqo waxay ku siinaysaa 30 daqiiqood ku diyaargarowdo. haddaad qalabka gaariga ka soo rogayso kale, haddaad setup garaynayso, diyaarinayso lightkii, iftiinkii, microphone-kii wixii dhan diyaarinayso, waqti wanaagsan bay ku siinaysaa inaad ku diyaargarowdo. labada kale aad ku muhiimka waxa weeyaan inaad lightingkaagana meel wanaagsa dhigto, sameecadahaaga iyo microphone-nada dadka wax kaga duubisana meel wanaagsan dhigto. communicationku waa inuu horta aad u fiicnaada markaad wax duubayso. communicationka waxa kamid ah in adiga la communicate gareynaysa dadka kale wax kula duubaya ee kula shaqeynaya. waxa fududaanaya saad qofkii ula xiriiri lahayd, saad dadkii kula shaqeynayna aad ula xiriiri lahayd. B-roll capture. B-rollku waxa weeyaan waxyaabo la halmaala ama fiidiyoyada la halmaala waxyaabahan ka hadlayo. iminka haddaan ka sheekeynayo libaax baa ku soo booday ama libaax baa halkaa ka soo booday haddaan idhaahdo waa inaan tusaa libaaxii. Those are called B-roll footage baa la idhaha waxaa soo dhan. markaad joojisa recordkii wixii oo dhan memory cardkay kuugu jiraan. memory cardkaaga waa inaad xafdidaa because hadhow step kalaa ku xigi doonta. post production baa ku xiga. marka wixii maalintaad duubtay oo dhan dee in la edit gareeyo weeyaan, amba in la diro, amba in la edit gareeyo, amba inaad habayso, wixii oo dhan baa loo baahan yahay. marka memory cardkaaga waa inaad save garaysataa.